munaasabadan oo ka dhacday gudaha jaamacadda Indian Ocean ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, macallimiin, aqoon-yahano, arday iyo waliba mas'uuliyiin kale. waxaana ujeedka munaasabadan uu ahaa baaris mid ka mid ah ardayda jaamacadda ka baxda oo sameeyay oo ku saabsaneed caqabadaha horumarka haysta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Ugaas oo ardaygan baarista sameeyay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay baaristan uu sameeyay waliba waxyaabaha uu ku soo ogaaday. kulliyadda Business Administration waxaan maanta oo taariikhdu tahay 27 November 2014 hortiina u taaganahay inaan ku soo bandhigo cilmi baarista aan ka sameeyay caqabadaha hortaagan horumarka Somali Football Federation, challenges for the development of Somali Football Federation. kooxdii ugu horeysay ee kubadda cagta waxaa la aasaasay sanadii 1940 waxayna la tartami jirtay kooxihii kubadda cagta ee gumeystaha Talyaaniga waxayna kaga guuleysatay tartamo dhowra oo gudaha wadanka lagu qabtay, laakiin kooxda qaranku xilligaas marna kama qayb galin tartamo wadanka dibadiisa. burburkii kadib xiriirka kubadda cagtu wuxuu soo nooleeyay qabashadii tartamada ciyaaraha, laakiin se taariikhdii la soo maray ee dagaalada iyo dambiyada laga galay dadka aan waxba galabsan. gabagabadiina munaasabada ayaa waxaa soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda badweynta Hindiya ee magaalada Muqdisho Professor Cabdulqaadir Maxamuud Cutush. marka waxaan jeclaan lahaa in guddiga kubadda cagta ay ka faa'iideystaan taas oo ay sameeyaan garoomo privaate ah oo iyagana lacag lagu galo. Axmed Cumar Sheekh Nuur, telefishinka caalamiga Home Cable TV, magaalada Muqdisho.